عليكم ورحمة الله وبركاته. mar kale waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kale. Muuqaalka maanta aan idin hayo wuxuu ku saabsan yahay buug magaciisa la yiraahdo Why Nations Fail. Dalalku maxay u fashilmaan? Dalalku maxay u burburaan? Buugga ciwaankiisa kore waxa la yiraahdaa The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Asalka ama aasaaska awoodda, barwaaqada iyo faqriga. Qorayaasha buugga waxay xoogga saarayaan saddexda dhinac in ay cilmi baaris ku sameeyaan. Cilmi baaristoodu waxay socotay muddo 15 sano ah. Buuggani waxay ku soo bandhigayaan markaas inaan ogaano oo aan akhrino cilmi baaristii ay sameynayeen 15 sano iyo wixii ay ku ogaadeen iyo wixii ay arkeen. Qorayaasha buugga waxaa la yiraahdaa Daron Acemoglu iyo James Robinson. Qodobka aan rabo buugga in aan idiin soo bandhigo marka ugu horeysa buugga saas ayuu u eg yahay. Insha Allah shaashadan waan soo saarayaa. Qorayaasha buugga waxay soo bandhigayaan qodob muhiim ah, qodob ku saabsan dalka iyo dadka Soomaaliya. Waxay leeyihiin dadka Soomaaliyeed maxaa u diidan inay helaan dowlad dhexe oo adag oo noloshooda hormarisa oo dhaqaalahooda hormarisa. Waxay markaa fiiriyeen oo ay cilmi baaris ku ogaadeen isku dayo fara badan oo dowlado lagu sameeyay taariikhda Soomaaliya oo markaas waxa weeye dowladuhu ay ahaayeen dowlado waxa waaye central ah ama dowlado dhexe ay ahaayeen iyo sababta ay u hana qaadi waayeen. Waxay markaas ogaadeen sababta u diiday dadka Soomaaliyeed inay hormaraan dhaqaalana ay helaan in ay tahay dadka Soomaaliyeed oo qaab dhismeedkooda uu yahay qaab dhismeed bulsho, qaab dhismeed leh qabali ah. Qabiilka ayaa wax weyn la ah. Qabiilka ayay aaminsan yihiin. Qabiilka ayay daacad u yihiin. Saa daraadeed qabiilku wuu isla weyn yahay. Qabiilku han ayaa ku jira. Waxa uuna diidayaa qabiil kale in uu u taliyo. Qabiil kale in uu maamulo. Qabiil kale in uu awood u sheegto. Si markaas waxa waaye dowlad dhexe loo helo waa in la ogolaadaa qabiilada qaar ay ogolaadaan in qabiilo kale ay maamulaan oo ay xukumaan. Marka waxa ay ku soo gabagabeynayaan oo ay sheegayaan dowlad dhexe ee Soomaaliya horumarkeeda dhaqaalaheeda waxaa hor istaagsanaa oo diidanaa mar walba qaab dhismeedka bulshada Soomaaliyeed oo markaas ah qaab dhismeed qabali ah. Taas marka waxay yiraahdeen way shaqeyn weysay. Marka waxay leeyihiin dadka Soomaaliyeed waa in aragti kale ay la yimaadaan maadaama aragtidan lagu fashilmay, maadaama aragtidan aragti burbur keentay ee noqotay. Waxaan jeclahay wax inaa ka faa'iideen. Buuggani xaqiiqdii qof walba oo markaas arrimaha siyaasadda raba in uu ka shaqeeyo ama uu ku dhex jiro faa'iido weyn ayuu u yahay. Khayr badan baan idin rajeynayaa. Videogan isgaarsiiya, like saara, comment gareeya, wixii falanqeyna waa dhinaciina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.